السلام عليكم dhageystayaashana qiimaha badanow ku soo dhawaada channelka Tab waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa dhageystayaashana markasta na soo dhiirigeliya waxaan leeyahay waxaan channelka ku wadnaa dhiirigelintiina iyo talo bixintiina waana ku mahadsantiin ee halka ka sii wada muuqaalkeena maantana wuxuu ku saabsan yahay si bilaash ah kaga soo degso internetka book kasta oo lacag ah arday macallimiin iyo qof kasta oo raba inuu barto ama baro cilmi dadka kale waqtiga maanta la joogo waxa hubaal ah in qasab ku tahay inuu internet kala saaxiibo si uu u raadsado buugaag iyo maqaale la xiriira cilmiga uu baranayo ama uu dadka kala barayaba haddaba waxa jira website fara badan oo laga soo degsado buugaag lacag la'aan ah laakiin qaarkood ma ahan waqti yale sidaas daraadeed waxaan muuqaalkan kuugu soo gudbin doonaa website ka caawin doona inaad soo degsato buugaag iyo maqaale la xiriira cilmiga sayniska waana website-ka ugu fiican marka la eego tayada iyo tirada buugaagta ku jirta oo ah buugaag si gaar ah looga xiiseeyo goobaha waxbarasho heerarkooda kala duwan haddaba la socod wanaagsan website-ka idin wada waxaa loo yaqaanaa Library Genesis ama LibGen sidaas waa loo soo gaabshaa mar walba browser-kaaga saan kugu kacsan halka kore waa ku qori kartaa halkaan kore waa ku qori laakiin waxa uga sii fiican Google-ka halka wax laga baaro dhaxbartanka inaad ku qortid sababtuna waxa waaye website-kan waxa ku jira buugaag tiro badan isla markaasna website-yo kale laga soo qaaday oo ay lacag ka yihiin marka cidna ma rabto inay juhdigeeda lacag la'aan ku bixiso marka website-yadaas iyo dad kale oo u qaabilsan xagga security-ga way la dagaalamayaan website-yada noocan oo kale oo buugaagta la soo jebiyo lagu soo shubayo inay hawada ka bixiyaan isku dayayaan saan oo kale loo raadiyaa ayaguna marka .com iyo .net iyo waxba uma daba mariyaan qaab aan la garan karin ay u sameeyaan markasto halkaan hoos ku qori kartaa marka LibGen qaybtaana waa qaadan kartaa Library Genesis-ka LibGen waa qaadan kartaa LibGen-ka iska fudud mar walba maadaama qaabka la soo gaabiyo ay tahay inter marka dhacdo halkaan ku keenaa marka iyadoo qayb tiro badan website-kan Wikipedia xataa waa ka fiiri kartaa waxa loo adeegsado oo jeeda qayb kala duwan akademiyada buugaagta maamulka waxa soo dhan buugaagta sawirro magazines journal waxa soo dhan laga wada LibGen-ka waa kana marka ku dhufo linkigaas linkiga ma ku dhufatana halkaan ku soo qaaday halkaan ku keeno marka halkaan buuggan ka baarayna marka buug waxaan ka soo qaadaynaa Amazon oo kala hal buug ka soo qaadaynaa buuggan oo kale buugaas marka soo qaado copy aan soo dhahnay halkaan waxaan ku leenahay marka right click paste right click copy aan soo dhahnay right click paste intaas oo la wada garanaa waxaan sameeynaa marka maxaa ku raadinaya marka buugga waxa ku raadi kartaa inta ka hor waa iska dhaaf kartaa scientific article miya waxa raadinaysid book standard oo academic miya waxyaabaha shaqatirada la xiriira miya fiction buugtan tayaariga miya ama waa journal hada aniga qaybta ugu horeysa iska dooranayna sidii raan ugu dooraato inta imaanayna qaybtan kale waxaan ka dooranaynaa title book title-kiisa waa waxaan qoray yaana book waxa lagu raadi karaa title-kiisa author-kii cidda qortay lagu raadi karaa sanadkii la qoray cidda daabacday waxa soo dhan lagu wada raadi karaa marka anaga waxaan ku raadinaynaa book ciwaankiisii search aan leenahay waan noo keeni waayay sababtu waa maxay by Jones aan dhahnay by Jones kana ka tireenaa marka haddaan book ciwaan ku raadinaynaa aan dhahnay qofka magaciisa ka reeb ama qoraaga magaciisa ka reeb saasan ka wada search mar kale waa kana uu keenay book marka edition-ka adaa yaqaana 6 edition miya 7 edition miya buugga raadinaysay 8 edition inta badan 9 edition iyo 7 edition-ka ama 8 edition-ka farqi badan uma dhaxeeyo waxyaabo laga yaabaa in lagu soo bedelay mid kale hesha kugu filan markasta waa kana economiga asaasa ku baari kartaa hadduu engineering yana waa kana ama fiirin asigana da engineering arday engineering tareen ayaa tahay ku soo qaado asigana sidoo kale soo koobiyeyna bis right click paste asigana sidoo kale mar walba buugga ciwaankiisa bis reebo 10 edition-kan iyo iskaraaf yani dadkan buugaagta soo dhacay waxa laga yaabaa edition-kii waxa isku soo diraya buugga ciwaanka bis soo qorayaan iyo title-kiisa cidda qorta bis inay soo qoraan dhici karta kadibna author ayaa ku raadi karnaa author waa kaligiisa ku raadi kartaa haddii aad buugga magaciisa weysid author-ka ku raadi da author-ka weysid sanadka raadi ama cidda daabacda ku raadi had search daana buuggan waa helaynaa waa kana structural analysis kaligiis madax bannaan structural analysis meelaha naga soo baxa
وكان structural waa 7 edition ninkaana qoray isla ninka waa ku raadi karnaa ninkaas qoray magaciisa inta ka soo koobiye kartaa ku raadi kartaa waqti dheer ka qaato laakiin magaciisa author-kana ku raadi kartaa laakiin marka author ku raadinaysid waa inaad author dooratid kadibna ay search tiraad isagana laakiin author-ku inuu buugaag badan qorayo isla markaa aad helina dhici karto waa kana buug oo helna marka structural analysis waa ujeedaa Amazon lacag uu ka yahay $42 buugan kalena 244 ka ahay lacagtaas jeebkaaga uma fiicno inaad ka bixisid marka hadaba buugta free ku heli kartid okay waxa kale oo raadi kartaa inaad dhahdid si gaaban oo u dooratid detail oo dhammaan wixii structure analysis ciwaanka aan soo celiyo markaan iyadana qaab kale wax loo baarayo aan fiirino buugta oo la xiriirta oo specific oo kaaga dhiga markii oo lagu daro calaamadaas calaamadaana ku dareena fiiri buugta xataa sawirradooda ku soo saaraa aad detailed with word all calaamadaas astriga all oo dhiganta author-ki maana title-kana doora marka aan buugga title-kiisa waa mar walba waxa ku raadinaysa iska hubi si jada dandaano oo u dirno anoo keeni doona dhinaca ka soo bixi doona buugta wala mid hadda buug medicine aan soo qaadno sigana fiirino buugan oo kale hadda waa buug medicine soo koobiyay right click copy soo dheh xagga sirjiga imaw right click paste dheh marka tiraadid waxa iska reebtaa marka maadaama author aad ku raadinaynin author-ka iska reeb buugga magaciisa bis soo reeb edition-ka waa beeri doontaa qaybaha kala duwan ku soo saaraa edition-ka keenay sababtoo ah inta badan waxa arkay edition-ka ma raacayaan qolada oo internet-kan ama website-kan wax soo gelinaysa edition-ku madan edition gadaalay ugu dirayaan buuggi laakiin hore ka soo bixi diidaanima maqan somehow wax sababa oo jirta sirjide hakana asna anatomy halkan lacag uu ka ahay waa kana buuggi sawirkiisii wixii dhan uu soo saaray si fudud waa maxay waa marka astriga calaamadan astriga aan raacin buugta si la xiriirta bis ku keena hadda waxoogaa ku yaray yaabaalaysay wax tira badan oo ku soo saaray marka daarabta inaad si xadido calaamadaas adeegsan kartaa dadkan management-iga iyo sheeg waxyaabahan self development-iga ka hadla ayagana waxay dhahaan buug ay ka hadlay isticmaalaan jira buugan hadda 7 habits of highly effective toddoba caadi dadka macnaha qatarta ah ayuu ka hadlaa kan sax effective karig marka qaar wax ka qaldiin oo soo qabanaa dhici karta effective dibna surgery isla markii buugga uu keen doona wax kale macnaha calaamada astriga magaan raacay si toos u target gareena laakiin laga yaabaa hadda calaamada astriga aan ka dhaafo calaamadaas aan ka dhaafo oo symbol aan iska dhaho title-kan aan ka dhaho inuu buug tira badan iska keeno waan arki doonaa buug tira badan oo keeno sabab habits ka keeno laakiin buug badan la soo socdo doonto meelaha hoose daa fiirisid buug kala duwan la socdo si kaliya maahan calaamadaas marka wixii isiga si gooni ka dhigay ciwaankaasna wato okay hadda waxaan isla wada aragnay inaan buugta raadi karno qaab karta ku raadi buugina heli kartid digsi inaan la dejiyaa rabaa marka buugan oo kale hadda kii anatomy-ga nagu celi ama structural-ka nagu celi mid kamid ah noo soo qaad asigaan dejinaynaa maadaama ardada inta badan wax u baahan oo buugta baarta ardadan jaamacadaha dhigtay u badan yihiin ardada secondary markuu dhigana waxa laga yaabaa inuu wax badan aad u baarin ama website-yadan oo kale dadka self development ka sheekeeyayna buugtaydii oo dhan inta ka buuxa ka xogaa ani la fikirkay mar baan akhri jiray had sirji markaan dhaho wax kana asna waxaan keeni doonaa oo keenay title ay doorahay all specific no as idii karay oo buugta la xiriirta anatomy-gaas bisa la keeni lahay kaliya buuggii ayaan raadinaa edition-ka hadda ugu dambeeyay edition-kii qanciyo markaan helo waa ku dhufana mar walba edition-ka ku qanciyo markaa tagtid buugga link uu leeyahay linkigiisa ku dhufo buugga link uu leeyahay linkigiisa ku dhufo linkigiisa waa ku dhufatana hadda buuggaan oo kale essential clinical anatomy alla linkiga waa ku soo dhufunay isaan oo kale uu keenay meeshaan ku kacay dal linkiga kor ku sii leeyahay ku soo dhufa linkiga hadana mar kale halkaan uu ku keenay marka wuxuu ku leeyahay waqti qaar waa PDF waqti qaar waa e-book wax la hayo electronic publisher
buwaagta saasi u badan yihiin buwaagta marka electronic publisher-ka qaab loo bedeshaa jirta video hadda koor aan soo geliyaa jirta oo electronic publisher ama e-pub buwaagta lagu bedelan karo videogaas ina raadisaa fiican isdii u baahato electronic pubka in la bedelo website-ka ayuu ku jiraa ama channel-ka ku jiraa ta akili kartaa si e-pub ama pdf-ka word loogu bedelaa ama e-pubka pdf loogu bedelaa ee labadooda meesha ku jiraan marka geddan oo kala ku soo dhufanay gedna ku fatana buug wuxuu ku bilaabi doonaa inuu ku degto almost buwaagta dhan sana ku adeegsan kartaa ama engineer ahaw ama economics dhigo ama medicine dhigo ama ka shaqeey buwaagtan self development-ga nooc walba oo buwaagtan science-ka iyo management-ga iyo dhammaan la xiriirahay halkaan ku jiraan waana website-ka ugu fiican aan arkay waana ku mahadsantahay dhageysiga muuqaalkan waxaan ka rajeynaynaa in asxaabtaada la sii wadaagi doontid muuqaalkan muuqaaladana dambe aan la socodin waa mahadsantahay